kulanti wacan daawadayaal halkan waa channelka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal warbixin gaar ah oo aan kaga hadlayno xasuuq ciidamada Kenya ay gobolka Gedo u geysteen dad shacab ah warbixintan waxaynu ku faguri doonaa dadka shacabka ah ee xasuuq u geystay Kenya tirhaanta ay gaarayaan dad ilaa hadda la yahay oo afduub ahaan u heestaan Kenya iyo ka hadalaanta dowladda federaalka Soomaaliya oo warbixintan aynu ku eegi doono waa qamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 24 bisha September 2020 oo diyaar garooba saaxiibayaal warbixintan oo dhameystiran aynu ku bilaabnay warar hordhac ah oo naga soo gaaraya gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay hal mar ku soo daateen tuulada iyado ee hoos timaada degmada Ceelwaaq kadibna xasuuq baahsan ay u geysteen dadka rayidka ah ee ku dhaqan tuuladaasi dad goobjoogayaal ah ayaa Halgan Media u sheegay in ciidamada shisheeye ka soo jeeda Kenya ay qaar ka mid ah dadkaasi ku dhaqan tuulada ay qabqabteen kadibna ay suugayeen meel bacaad ah oo ka mid ah xaafadaha tuulada waxayna ciidamada Kenya goobta ku toogteen hal qof oo shacab ah halka ay sii afduubteen 5 kale oo aan waxba galabsan mana looga waxa ay ku sugan yihiin dadka la afduubtay Halgan Media ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah dadka lagu afduubtay tuulada iyado waxaana kamid ah Warsame Abeyle Cilmi Cabdullaahi Abeyle Cilmi Maxamed Shide Xasan iyo Warsame Barre Qorane sidoo kale ma suura gelin aan helno magaca wiilka ciidamada Kenya ku dileen tuulada iyado balse waxay Halgan Media ogaatay inuu dhalay siyaasiga ka soo jeeda Kenya ee yiraahdo Aadan Barre Ducaale inta badan ciidamada Kenya ayaa duqeymo ka geysta qaybo ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya iyagoo dhibaatooyin badan u geysta dadka shacabka ah xasuuqa Kenya ay ku hayso iyo gumaadka dadka shacabka ah ay la beegsanayso ayaa soo bilowday tan iyo markii ay gudaha u soo galeen dalkan Soomaaliya iyadoo dhowr marna la baahiyay warar la xiriira xasuuqa Kenya oo ku aadan dilka iyo boobka hantida dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo dowladda federaalka Soomaaliya ee hogaamiye madaxweyne Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ba kama aysan hadlin dhacdadan ugu dambeysay ee tuulada iyadoo lagu geystay dad shacab ah oo ku dhaqan tuuladaas oo xasuuq ay u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa difaaca Kenya ilaa hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in ciidankan Kenyaatiga ah ay xasuuqaan dad shacab ah afduubtaan qaar kale balse ciidanka Kenya ayaa markaas oo weerar xoogan oo jidgal ah ay kala kulmaan dagaalnimada Al-Shabaab waxa ay dhibaato xoogan u geystaan dadka shacabka ah ee ka agdhow halka dhibaatada iyaga lagu la eegtay sidoo kale siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa dowladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland ba ugu baaqay in Kenya ay soo kala cadeyso sababaha ka dambeysay xasuuqa dadka shacabka ah iyagoo cod dheerna ugu sheegay madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisuba in ciidanka Kenyaatiga ah ee ku sugan dalkan Soomaaliya gabi ahaanba laga saaro maadaama uu sii kordhayo xasuuqa iyo beegsiga ay ku hayaan dadka marasta ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka joogaan maamulka Jubbaland oo xiriir hoos u kala dhaxeeyo Kenya weligood kama aysan hadlin tacadiyada iyo dhibaatooyinka Kenya ay ka geysto deegaanada ay maamulaan taa beddelkeeda dowladda ayaa dhowr jeer dhaleeceysay xasuuqa ka soconaya Gedo iyo deegaano hoosaga balse ma jiro wax aan cambaareyn ahayn oo dhafisan oo ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ku eedeeyay in dowladda federaalka ay iska indhatirayso xasuuqa Kenya ee ka wado gudaha dalkan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo dhawaan ay ahayd markii ciidamada Kenya duqeyn ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ay ku laayeen xoolo iyo dad shacab ah iyadoo taasina aysan jirin cid wax iska weydiisay waxaana xasuuqan loo geystay dadka shacabka ah uu noqonaya midkii ugu darnaa ee ka dhaca gobolka Gedo tan iyo inta ciidamada Kenya gudaha u soo galeen dalkan Soomaaliya ilaa hadda waxa maqan oo la yahay jaani cirib halka la aaday 5 ruux oo ay afduubteen ciidanka Kenyaatiga ah ciidamada Kenya oo aan awood badan u lahayn iska difaacidda iyo waliba ka hortagidda weerarada Al-Shabaab ayaa u soo jeestay baabi'inta iyo xasuuqa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ay maamulaan inkastoo gobolka Gedo ay ka sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka geesay halkaasi haddana ma jirto ilaa hadda saacadihii ugu dambeeyay wax tallaabo ah oo ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland oo dhibaatadani ka dhacday deegaan ka tirsan maamulkiisa balse gacanta uu ku hayo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya
in xasuuqa Kenya ay uga dan leedahay isku dhac dhexmara mar kale labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya inkastoo ay jiraan wada xaajoodyo hoose iyo sidoo kale wada hadallo socda dawladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ku aadan xal waara loo helo arrimaha ganacsiga iyo xiriirka labada wadan hase yeeshee Kenya ayaa dhankeeda si laba jibaaraysa tacadiga iyo sidoo kale xasuuqa ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbooyinka guud ahaanna daawadayaal wanagaynta warbixintii gaarka ahayd aan kaga hadlaynay ciidamada Kenya oo xasuuq baahsan ka geysay deegaan ka tirsan Ceelwaaq ee gobolka Gedo haddaba daawade warbixintan iyo sidee kula tahay noogura fikirka qaybta hoose ee commentiska tan iyo kulan dambe nabadgelyo.